الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن إذا لهانتي بدا وذيال ملك استهدافها عالم كجوجتان هل كان شبكة عالمية بتلال نيوز حرونت هذا كل هذا مقالة برعة وعلى سوق هذا النيوز قربين كنا برنامج كان داليرة برنامج كان داليرة تطبعات كنا وحنا قمرتيا أبوان سليمان عبد الله وكمده أبوان انت داديرة كنا مقالة برعة يعني سليمان كسر وحن كذا مهدعنا وقت قاعد نسيسي بسم الله الرحمن الرحيم وندوهي aad baan idin kaga mahadcelinayaa ku martiqaadkaaga adigu martiqaaday shabakada Batalaal News abwan Salebaan intaynan gudagarin barnaamijkeena marka hore adiga bulshadaan iskiin baro taariikh nololeedkaaga iyo kooban bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa saa sheegtay waa Salebaan Cabdilaahi ku magac dheer abwan Salebaan Hallaasi waxaan kamid ahay abuurka gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco waxaan ku dhashay gobolka Togdheer halkii horeysay ee waxbarashada ka bilaabana waxay gobolka Togdheer walina iyadii waxbarashadii ku wadaa wali gobolka Togdheer ayaan ku noolahay wali gees ma dhaafine wali waan dhex joogaa taasiga nimaadna abwan Hallaasi taariikh nololeedkaaga goormaad ogaatay inaad hal abuur tahay kale waa su'aal meesha ku jirta markii horeysay aan taxsameeyay may fogeyn waxay horta 2010kii 7 sano ayaa laga joogay imika markii hore eray wax la isu geeyay waa iska waraaburi jiray laakiin markii horeysay aan maanta dhameystiran sameeyay waxay 2010kii bishii 10aad maalmaha kamid ah ayuun bay ahayd markaa waxaan sameeyay tix markaa aniga hawli soo gaadhay aan dareenkayga kula wadaagayay cidii markaa hawsha ah iyo si soo gaadhay qaabkeedu markaa 2010kii bishii 10aad ayaan maasidii horeysay uriyay Salebaan waxa ka jirta guud ahaan geyga Soomaaliland ima geyga Soomaalida ima guud ahaan qaaradda Afrika abaar baan waxaad ka tirisay gabaygaas bal noo soo qaba abaartan ugu horeysayna gabayadana abaartan dhulkii asiibtay aadmigana makaaga taagan Itaaliidani tarmaysa adduunyadan kale asqowday waxa imtixaan dhacaya ummadda baa abuurtay iyaga baa unko markay alla caasiyeen ibtila door bideen indhaha isku wada qabteen uurkana isu wada dabeen ayuu alla adhax jabsho awoodoodii tusee balmay eebbahood baryaan abaartu halaalantee abaartan arlada sadhaysay afartii maal adduunya laysay abeerkii eel ku reebtay adhigii ridaha ku goysay lo'dii unug baan ka reebin ileen alla wuu arkaaye wuxuu eebbe eegayaa intuu leegyahay arooro samirka ummadiisa oo dhan abaartana waxa arkumay inaga weeyaan runtii horuu u asteeyay abaartana waxa arkumay inaga weeyaan runtii horuu u asteeyay eebbe aminta nimco badan tidhaahdo inuu ruuxii shukriya abaalmarin leeyaho ajarka loo badinaye waxa iyaduna gadeeda qofkaan u shukriyin ilaahay abaalmarintiisu tahay inuu oon ku raagayo arxanku uu ka dheer yahay dad yoo wasilaashado tixgelin isu muujiyo amuuraha oofiyo astaghfiran laana dhaha abaartu halaarantee waxaan iga awdanayn dadkana inaan dhib kastoo dhacdaba afkeenna ku taransanno ilaahoo la caayayo udgoonow rasuulkiiba intaa lagu foogay sallallahu alayhi wasallam intaa lagu fooganyee balmaad ummad yahay yaryari intaad isilaalisaan astaghfiran la dhahdaan amuuraha oofisaan abaartu halaalantee intaas ka soo qaadanaya tixdu kale way dheer tahay marka inta yar ma ka soo qaadanaya maasadaasi oo dhinacyo badan taabanaysa Salebaan magacaagu waxa weeyaan Salebaan Cabdilaahi naanis ba ku dheer Hallaasi maxaa lagu baxshay waa run ereyga Hallaasi kulay kelmad wana ka turjumaysa waxay u baxday tix maansa oo aan sameeyay waqtiyada kamid ah tixda maansada waxa la jiray jara habaab marka dhinacyo badan ayay taabanaysay waxa kamid ah dad hugunka iyo cayda hooyooyinka hadal dafayso raqiisna haweenka moodo hooyadu waa lama huraane haddaad hilinka ku ciirto aduun baa jara habaabi haddaanad ahaanin ilshe oo aanad hubkaba aqoonin oo aan lagu odhan Hallaasi aduun baa jara habaabi markaa Hallaasi tixda dhexdeeda
ayay ku dhex jirtay markaa madal magacaygan caadi loo wada kasaynaya ka tiriyey madasha ayuu magacaasi hallaasi iga soo raaca haddaan kaga nimaadno intaasi siduu kuugu baxay magacaaga naanaystaas hallaasi dhanka jacaylka abwan isaga wax maka tiri bismillaah kolley jacaylku marka run la sheegayo waa wax ugu badan ee halabuurku wax ka yidhaahdo sinu wada ognahay jacaylka inta badan waxa laysku qaadaa ma lahaya ma jiraa iyo ma jiro kolley an waxaan yaqiinsanahay waxaan ka mid ahay kuwa yaqiinsan inuu jiro dadka qaar kelmadda jacayl markaad ku tiraala ka jawaab dhinacyo badan ayay iska istaagayaan jawaabtii ugu la yaabka badnayd aan jacayl ka soo maro aan cid ka weydiiyo waxay ahayd macallimiinta ka mida soomaaliga dhigta ayaan ku dhisi kelmadda jacayl waa nooc ma se ma jiraa mise ma jiro jawaabtii uga siiyey waxay ahayd jacaylku waa rooxaano dadka ban yar baa aragta markaa kulley jacaylka waxaan ka yidhi waxyaalo badan waxaa jirta maanso la idhaahdo iyada lafteeda jacaylku baajay oo ka hadlaysa cid jeclaatay oo ciddii jacayl ay jeclaatay cid kale ay jeceshahay waxaa jirta maansho kale oo la yidhahdo iyadana curasho iminka waxaan soo qabanayaa maansada la yidhaahdo curasho waxay tilmaamaysaa maansada la yidhahdo curasho qof jeclaaday qofkiina aanu doonayn markaa waa qaabku wuxuu dhigan yahay sidii qaab inan jeclaaday oo kale maansadu sida tan ayay ku bilaan caashaqu hadduu ruux camiro uu cidlow saaro oo aan ciirka ruux kale ka jirin waa huqiyo ciile cindigiisa ciiraa xidhoo wuu curyaanshaye ceeshkiiyo cuntada wuu jaraa caanahana daaba calcalaacalkiyo heesuhu ciidan moodaaye cidla joogistuu door bidaa oo u cararaaye cabashuu u sheegaa qofaan caashaqba u hayne cirsiyo miciin buu bidaa kulana ceertaaye haddii uu jacayl kugu curtoo caadil kugu beero qofba waa ciddiisee haddaad qurub habboon doonto caqli garasho ee baabaxshee ay ku cugan weydo almacna way ku diiddaba adna aad hablaha carabta iyo caalamkama diiddo casiiskan ku dhaarteen naftuba way suncunaysaaye cajiib baabay kula tahay haddana way ku ciishaaye cadho aan dhammaanayn ayaa maanka ku cilaalan macaloolfayoobida intaa cayn kalaa tahaye haddii uu jacayl ku cuskadoo catowla wiilayso cududaha hadduu kaa dabroo xoogna carin weydo carraabada haddaad karahsato cidhibtu taagdayso circir haddaad noqoto oo casarka uun taahdo cilcilowga galabtii haddaad canab u baaqayso cishihii markay tahay haddaad cawda dacal duubto ciddiyuu hadday kula hadlaan ciddiyuu hadday hadal curshaan aad cidtima moodo runtii waa cimaariya la yaab cadib calaamaysan haddii uu xubbiga ku carmiyaad ciidda kala saydho cilmigaba haddaad dayrisaad ayna qori weydo culimmadu hadday kuu kacdoo lagu cilaajeeyo caagadiya jirkaamaba haddii cashar la buuxdhaasho cillasaar haddii lagu fariyo labada fiidcawlka halkaa labada fiidcawlka xagga wadaadadu ama dadka maxay hayday qur-aanka wax ku duweeyaa ama cilaajku dawadu ay kuu qoraan labada cirguduudood bay ku odhanayaan isticmaal oo marka qorraxdu dhacdo iyo marka maxay hayday subaxii qorraxdu ay soo baxayso marka halkaa waxaan leeyahay cillasaar haddii lagu fariyo labada fiidcawlka haddii labada fiidcawlka lagu idhaahdo dawada isticmaal runtii waa cimaariya la yaab cadib calaamaysan jacaylku kolley waa inta ugu badan aan wax ka idhi adigu wax ma jeclaatay se ma lagu jeclaaday su-aasha lafteedu si iga dhex joojisay ma lagu jeclaaday se waxma jeclaatay isaa inaad kusoo darta ma ahayn laakiin waan jeclaaday waa hubaal laakiin ma odhan karo waa lay jeclaaday sababtoo hadda qofka uurkiisa waxa ku jira war uma hayo waan jeclaaday weli uu xanaamisanahay mid aad u kululba bereberyaha ka mid ay soo maray oo maansooyin badanaan ku curiyey waxaan ka sameeyey buug la odhan jiray dareen jacayl dabagelkii buugga laftiisa 14 maanso oo 14 kuwa ka hadlayaan jacayl ayaa ku qoran markaa jacayl waan arkay intii uu qof bilaadan arki karayey markaa way jirtaa kolley in jacaylku dad badan uu soo maro jacaylka aanu gudubna dhanka taariibta dhalinyarteenu waxay ku la'aanayaan badda u dhaxaysa Talyaaniga iyo Masar siiba dadka ku dhalinyarta ku dhaqan magaalada Burco maalinba waxaan arkaynaa doon degtay doomaha degdayna waxa ugu badan Soomaaliland gaar ahaan heer Burco bal waxa jirta maansaad ka tirisay taariibta bal taa inoo soo qabo oo la dhaho ha ka bixina wadankeena bilan barito waa luule way jirtaa waa gabay ka hadlaya taariibka gabaygaasi marka hore uu ka sheekeynaya silaca iyo baaba ay taariibtu leedahay marka dambena dalkeena qaybo ka mid ah
ama guud ahaanba inagoo guud marayna wanaagiisa ayuu tilmaamayaa. gabayga waxa magaciisa la yiraahdaa saad sheegtay ka bixina wadankeena biran berrito waa luule. baabka gabay bidhaantiisa saxan waan bisleeyaaye bare lagu nagaadaan marshaa baal habboon loowe bayd kastaaba boosku galaan bilicu raashaaye bamba kuma bilaabee si bilan baan u beeraaye bashaashuu ilaahay baroo buuxiyaan ahaye bushaaraysta maantaan bulshada baaqu dirayaaye barbaartaa intay wada baxeen biladu miinaysay barbaartaa dhulkoodii nacee badaha uun jiidha badownimo kuwaa biirsadee boobka ku hayaamay isbahaysi gaalood kuwaa barasan moodaya bohol bay galeenoo bo'oo gaalo beegsadee boqoroo wallaahayow bugsi buufis baa galaye birjan ruuxii door bida inuu boqol ka soo qaato isagaan bartii gaadhinbaa bahala boobaane bacaadkaa barhkoodila markay biyaba waayaane bakhtigooda beerqalata iyo baacsadaa hele haddii baaqi soo hadho ninbaa meel ka buuxsadee bur markuu ku wada baabashee baay ka soo yeedho baaqu dira ciddiida dhashuu beddel u siiyaaye waalidkood markuu helo warkaa wuu basleeyaaye baahiyaysibuu kula kacaa beesha uu yahaye bitirshiga intuu ururshay buu meel ugu buusaaye iyagoo intaasoo bamaray bay ka baxayaane badhaadhaba ma helayaan mar qudha oo iyaga isbadaye boqoroo wallaahayow bugsi buufis baa galaye biimada in loo baratamaa barabax weeyaane bug iyo qalin adoo qaadan kara duunyaduna buuxdo oo baarka burcad iyo marsaday sixinkii beeldooja oo geel barqada dabagaloo hadba barmuu seexda oo midho bislaadiya cambuul baalka guranaya inaad badaha jiidhaa markaa sowdhi badan ma aha barbaariyay bartuu baad ku yaal baal la baabshaaye bulshaduna bartii biyasan bay bishir ka doontaaye barakaba dhul aan kuu lahayn baashiraad ma leh ha ka bixina waddankeenna bilan berrito waa luuleh burca iyo nimcada buuxdee booramiyo taalla berberiyo biyaha caynabiyo barada hoobaanta bilidhiigga hawdkiyo buskiyo boocda garanuugle baallaha sanaagiyo bankii beeyadii bariga balligubadle buuraha galbeed beerahaa gebiley boqorkeennu muu dhigin xumaan laga boqoolaaye ha ka bixina waddankeenna bilan berrito waa luuleh. qiimaha qaayaha iyo qadarinta naga mudano weli waxaan bartamaha kaga jirnaa ama aan dhex mushaaxina barnaamijkani dhalinyarada uu maanta noogu martiyay abwaan Saleebaan Cabdi Cabdilaahi oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Burco halka nagala socotaana waa shabakada caalamiga ee Batalaale News xarunteeda ku leedahay magaalada Burco. Saleebaan haddaan ku sii socono barnaamijkeena waxa jirta maasa kale oo aad ka tirisay hablaha geygeena jooga bal maasada sharax kooban naga sii. hablaha uun bay ammaanayaan intuu ka tira leegiin eray kastaaba sida tan ayay ku bilaamaysaa. hablaha geygeenna jooga hibada ee baheen ku uumay haddaan hal habboon ka muuqsho ilaah baa wada hanuunshay hubaal qurux baa ku dheehan xishoodkooda iyo hankooda ilaah baa heega saaray. hablaha geygeenna jooga hiddaha dhaqankooda suuban habbay u maraan hibaysan hawraartooda iyo hubkoodu runtii waa hadal asluuba. hablaha geygeenna jooga hankoodu hawada ma raaco hunguri yurub uma kaxeeyo horarku hilbahood ma feento halkoodaa ee baheen runtii hibo ugu galladay. hamiga hindisaha jacaylka haasaawaha haybaddiisa habkii guuree saxnaa wixii lagu hiigsan jiray hablaha geygeenna uun ayuunbaa lagu arkaa. heesaha dhaqankiyo hufkooda ciyaaraha hiilintooda habdhacda luuqda iyo hannaanka habkii hore ee dadkeenna halhaystiyo hilinka toosan hablaha geygeenna jooga ayuunbaa heer u goostay. hablaha geygeenna jooga hiilkii dhaqankay wadaane hilgaaddii hooyadeen ayuunbay weli hayaane habsaan ma lehoo habsaxan ayuunbay horu marshaane allow rabbiyow hawiiqin hirgeli hamigooda nolosha hoobayda carruurta iyo dhallaan hanaqaadistii hiddihii soomaaliyeed hadhuub iyo dhiilar tolis hamaha caanaha lulliin hilista haamaha biyood hablaha geygeenna uun ayuunbaa looga hadhay. hararka shanlihii iyo lixlaha aloolada hoga tuska ah hareeriga dhiga hirgala heddiisa ilaah ku sugay hablaha geygeenna uun ayuunbaa heli karoo habayn kara aqal habboon. aqal soomaaliga waxaa la yidhaahdo marka qaabka ugu qurux badan loo dhiso inan soomaaliyeed mooye inan kale oo dunida joogto oo dhisi kartaa maba jirtaba. hararkana iyo aloolka iyo waxyaalaha noocaasana inan kale oo dunida joogta
oo samayn karta inaan Soomaaliyeed ahayn iyada lafteedu ma jirto waa hibe ay gaar u leeyihiin hararka shanlihii iyo lixlaha aloolada hoga tuska ah hareeriga dhiga hirgala hediisa ilaah ku sugay hablaha geygeenna jooga ayuunbaa heli karoo habayn kara aqal habboon huq iyo hagardaamadeeda dhibaatada huurinteeda hawaysiga haababkiisa hamaansiga heerarkiisa hablaha geygeenna jooga ilaahay kuma habaabin hannaankooda iyo hubqaadka hubal rabbi baa hagaajay halow iyo heeda daabid heedoo hugun lagu lamaanshay huruuf iyo halacsigiisa halkaa huruuf iyo halacsigiisa huruufka kale oo wada garanaysaan huruuf iyo halacsigiisa hareemacad boodistiisa hareemacadku waa wax boodo dheer markaa waxaan sheegayaa inaanay dhib magaranaysaay cid ay wax ugu geystaan aanay iyada lafteedu aanay jirin hareemacad boodistiisa hablaha geygeenna jooga hankoodaa kaba sarreeya heddaa holan iyo tahriibta masiibada lagu hallaabo hirtaanyada halista reebta haraadka iyo uumigiisa hablaha geygeenna jooga hankoodaa kaba sarreeya oo ilaahay baa hanuunshay hargeysiyo heerka saylac dhankaa berberiyo hogtiisa shiikh iyo buuraha hadheeyey hawd iyo haradaa togdheerba hablaha giddigood ku nooli hubaashii hadime ma aha hubaan weeyaan la dhowray oo ilaah baa heega saaray tixdaas waxay taabanaysaa meelo fara badan oo kala duwan oo ku saabsan hablaha Soomaaliyeed Saleebaan maansida markaad sameynaysid imisa cashay kugu qaatay inaad dhamaystirtid waa dee maxay hayday waa webiga halba qofka hadda meeshu ka soo gaadho meel uu ku badan yahay biyihii iyo meel ay ku yeeri labada uu ka darsanaya markaa qofba ilaahay meel buuga dhiibaa waqti badan iguma qaato inaan curiyo iyo inaan dhammaystiro imika tan hableegeygeeno joogo kale hal maalin ayaan ku dhammaystiray waxaana jeclay aniga laftarkaygu markaan istiraahdo tix samee haddaad istiraahdo qofku maaha wuxuu isagu iska abuuri karo uu samayn karo laakiin dareen baa qofku kiciya markaa laakiin dareen aan istiraahdo tix ku abuur waxaan jeclahay inaanay igu sii magaranaysaa fogfogaan oo waqti badan aan igu qaadana markaa aan dhammaystiro waxa murtida la yidhaahdana maaha wax la baadbaadi doono iminka oo kale dee adigaagaa ila hadlaya haddaan yaroo koobanaysaa iminka u samee dee wax xigmad ballaaran igu sii leh ma noqonayo jacburka sidee baad isku tihiin runtii anagu iskuma wacnin jacburkana in gabay ama la jacburiyo ama hees la jacburiyo anugu waa nacbahay waan koo soo horjeedaaba dhowdaan baa waxaan ka qoray dhowdaan baa lagu maxaa jacburka kuu kalifay wuxuu ihi markii dowladnimadii la kufsaday ee hablihii la kufsaday ee dalkii la kufsaday ee dadnimadii la kufsaday ayaana sugaantii kufsada markaa dee ereyga laftiisa kufsi dee waa erey ceeba markaa ma jecli inaan jacbur sameeyo oo de kufsi ahaanun baan u arkaayo in sugaanaan jacbur ku sameeyo ma jeclin laakiin waxaa jira maansooyin runtii qaabka jacburkaoo kale loogu qoslo sida gabay aan sameeyey oo aan ka sameeyey iswaagarada waxaa la yidhahdo ama raabiska waxaan kusii dhownayaa guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena dhalinyarada nagu martiyay abwaan Saleebaan Cabdi Cabdilaahi Saleebaan waxaan ku martay barnaamijkeena dhalinyarada maxaa talaad u soo jeedinaysaa dhalinyarada meel kasta joogto meel kasta joogan dhalinyarada waxaan u soo jeedinayaa horta in la ilaaliyo dariiqii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo sunnihii diintana si wacan loogu dhaqmo dhaqankeena suubanay leenahay Soomaali ahaan gaar u leenahayna aad iyo aad loo ilaaliyo oo mar kasta lagu dhiirado in la horumariyo dhaqankeena uu si dabar go'aya maskax gumaysi ayayna haysta markaa in la horumariyo dhaqankeena Saleebaan waxaa noo soo qabataa gabayga xiga bismillah waxaan jeclahay inaan soo qabto gabay ka mid ah gabayadayda runtii ka mid ahaa gabayadii igu dareenka badnaa gabayga magaciisa horta waxaa la idhaha gurmad laakiin bulshada in badanoo ka mid way marin habaabiyeenoo iswagar bay u yaqaanaa gabaygu wuxuu ka hadlayaa horta waxyaala dhaqan xumada ayna soo food saaray beri dhoweyta wax magaaladeena soo gashay laba eray oo labada eray mid aad u xun yahay runtii raabis iyo iswagaris raabis waa eray horta runtii isaga laftiisu xun kelmadda iswagar ayaa ka sii daran haddii aad imirka ku qorto goglaha oo kuu soo baxo waxaa micnihiisu runtii waad naxaysaa meel aanad hore uga danqateen ayaad ka danqanaysaa gabaygu labada ereyba waad ka dhexdhexsanaysaa iswaagar iyo raabis
iswagar iyo raabis waqtiyada ka mid ah dhallinyarada iskaga dhex jira runtii inkastoo aan aad sursii raaraacin haddana dhallinyarada lafteeda waan ka warhayaa waxaa iga soo horbixi jiray guruubo gabalku markuu dhacayna miya hablaa wada socda in badan waan u fiirsaday guruubadaasi qaab gaaray u labistaan dhar gaaray xidhaan waqti gaaray soo baxaan qaab gaaray u hadlaan berberyaa ka mid a waan waraystay dad badan oo ku dhowdhow ama in badan iyaga ka mid a runtii waxyaalo damiirkaygu diiday ayaa iga soo baxay waxaan ka curiyey gabay la yidhaahdo gurmad oo markaa iyagu dadka qaar dad badan u yaqaanaan markay swaagar ka dhexdhaansadeen swaagar gabaygu kolley markaan iminka tirinayo micno badan ayuu leeyahay oo fasirid badan ayaa ka dhex muuqanaysa waxaan isku dayayaa kolley ma soo koobayo micnihiisi inaan meesha yaro muhiimkaa yaro dul taabto sida tan ayaan ku bilaabayaa in dhoweydba gabaygii ma tirin tan iyo goor dheere galgalaangalkiisii in badan waa aniga antixine goobuhu ka soo go'i jiraan guriyey waayahana gibil baa ku xidhan oo ma furin gararkii xeernaaye god kastaba markuu galay ayaan nacaygalkiisii ha yeeshee haddii aan god dhigo waan godlinayaaye gaagax yeelan maayo runtii waan gelbinayaaye giddigiin gargaarkayga dega waan gudbinayaaye wax gelgelay naftaydii haddaan guudka ka abbaaro garan waayey goortii la nacay dhaqankii toosnaayee garan waayey gocondhadan la dhigay gacmadeennii garan waayey gogashii saxnayd guuxan soo gala ee gabalkuba hadduu dhaco jawgu waa iskadiyayaaye gabalkuba hadduu dhaco jawgu iskadiya marka qoraxdu dhacdo ayay soo baxaan gabalkuba hadduu dhaco jawgu waa iskadiyayaaye guruu magacyo gaalood lehbaa buuxsho goobaha ee intay garamo waaweyn xidhaan oo gacmaha dhuuban ayuunbay iskodayaan sidii gudinka fuurkeeda gudinta horta waxa weeye waa bir iyo daab la iskeliyey daab saa u soo qofoorare weeye saasoo kale soo yaro qallooca gudintuna wax tumaalo tumo oo magaranaysaa iyadana la geliyo markaa sidii gudintoo kale ayay soo foorarsanayaan leh intay garamo waaweyn xidheen oo gacmaha dhuuban ayuunbay iskodayaan sidii gudinka fuurkeeda way wada gamuurmeen sidii gaada geel gurana garbaha dalooshamay siday jaas u sugayeene garbaha dalooshamay halkaan leeyahay siday jaas sugayeene waxaa jirta xilliga xalfadda la dhiganayo kale baa laygu yidhi xalfadda waa aragteen oo marka aroos ay tahay ama xalfad kale ay tahay in dadku kala tegayaan waa loo jaakadhaayo waxaa la yidhahdaa dadka ka dhaca tagaane marka ilaa intaa dhaxantay taagan yihiin baa la yidhiyo dhaxantaa wax yeesho garbaha dalooshay ayaan leeyahay garbaha dalooshamay siday jaas u sugayeene madaxyada garaaryaa ku yaal sumado gaaloode geeri bay ku noolyiin runtii waanay garanayne raabiskiiyo rakaabada la go'ay waa rogmadayaale gayigeenna waa kuwa ku furay ficillo gaaloodee gobannimadii diidoo gelgelin bay u guureene gaf weyn bay galeenoo maruun guulla wuu qabana may garan wixii loo igmaday iyagu leeheen faray ee gidaar dumay tabtiisii ayay goof ku siibteene goobtii ay istaagaan ku guba gacal ha waayaane waxaan leeyahayba hala dabar jaro marka halkaa laaya malahide ila waa dad dadka ka mid eh laakiin waxaa leeyahay dhaqankooda hala maxay ahayde hala dabar jaro dhaqanguurkan soo guuxayiyo markaa inuu sumad gaalood yahay baan sheegaya swagarkii wixii raabiska dhaqanguurkan soo guuxayiyo ganafkan gaaloodka iskabnaynta gumaysigan casilan gamashigaa muuqda gaawaliida guracaa tarmee goradda loo yeelay nigatiin gawaan lagu xidhiyo kaba guluub yeesha nigatiin gawaan lagu xidhiyo kaba guluub yeesha waa aragteen xitaa ummadaha kale ee aynu ku dayanayno ma jirto maxay ahaydey cid nigatiinka garamad ku xidhata nigatiin dee shaar iyo wax loo xidho baan aragnay oo caadiyo suul loo xidho laakiin dhaqan xumada innaga soo foor saartay garamada iyo nigatiin cidlaa ku xidhaya kaba guluub loo aad moodo in sida aroosbig wax oo kale ana uu soo xidhanayaa isagoo soo haystaa heer sarreey inuu marayo wax jalan ka maqlay leeran daba qaadin isagaaba leer daba qaadayba nigatiinka waan lagu xidhiyo kaba guluub yeesha gaagaab rag iyo xidhana maanta waa gawe gaagaab rag iyo xidha gaagaabka kule oo mariyay dumarka qaar xidhaan laakiin halkaan soo qaadanayo nin weyn baad arkaysaayoo mara gebigeedu ilaa ruugaasoo quraa xidhan gaagaab rag iyo xidhana maanta waa gawe allow yaa waxay garan layiin gaaru fahansiiya hablihii baniga laftoo soo qaadanaysa kama maqnaynta hor ragga ahayde gashaantidii bar baa raacayoo goobahaa tagay ee swaagar isba qaar baa la baxay oo gaadhay meel darana may garan micnaha magacu sido guud ahaantiisa gudub bay u fekerayaan guracan gebi ahaantoode gudub bay u fekerayaan guracan gebi ahaantooda allow yaa waxay garan laayiin gaar u fahansiiya haafafkay siteen gaabsho oo gaar u socoteeyo girgirada sidii geriga dheer bay u suuqeena guddoomiyahan guruubka u ah way ku faanaan kelmadda guruubka guddoomiyahan guruubka ah baan soo qaadanaya kelmaddaas habeenada ka mid aanu magaalada dhex maraya meel waddaa iska marayo laamiya markaa meel waxbarasho goob waxbarasho ka soo rawaxnay ayaa waxay ka soo horbaxday inaan ku dhex jirtaa laba inan aan markaasi da ahaan way ka yararyihiin markaa inanta way u sheekaynaysaa markaa inantaas socodkeedu uu bedelan yahay ma jecelina awlaha ka sheega laakiin socodkeedu runtii
wuu bedelan yahay qaabkii u hadlaysa lafteedu wuu bedelan yahay inamadiiba u sheekeynaysa markaa ku tii waryaadhay maad ogtihiin waa kuwii gruub shidan oo jaaska dhiiqay ay yidhaahdeen guddoomiye noo noqo markaa kelmaddaa guddoomiyaha ka soo gelinaya waa halkaasoo inay guddoomiyihiin ayaga laftoodu guddoomiye wax weyn u arkaan guddoomiyahan gruubkaa u ahay way ku faanaanay gadismo si gaaladu jeclayd way u goosmeene allow yaa waxay garan layiin gaar u fahansiiya erifon dhagaha lagu gujo gudaha loo riixo irji muunida ayaad arkaysaa qof erifon dhegeysanaya waa dhibaatooyin soo foor saartay oo hees weliba dhegeysanaya erifon dhagaha lagu gujo gudaha loo riixo godob hadalkii loo geystayoo laysu gaagaabsho halka godob hadalkii loo geystay laysu gaagaabsho kelmaddaa waan micnaynayaa anoo berberyaa ka mid a waxaan arkay laba inanoo wada sheekaysanaya labadaa inan af soomaali ku wada sheekaysan maayan english ku wada sheekaysan maayan sawaaxili ku wada sheekaysan carab ku wada sheekaysan maayan af aanan weligay maqlin ayay ku wada sheekaysanayeen markaan war afkan waa nooc min ay ku dhahan waa softi af soomaali markaa qaabkay u sheekaysanayeen waar miyaad afadxaaysaa waa nagii israaxaaraynay saaxaasaagaygii afadxaa waar miyaad ogtahay bay kuleeyihin waa nagii israacanay saaxiibkaygii axmed hadda wasa dhigayaan waa nagii gaaxagaakayga israakeysanay waa nagii naaxaanaagii iyo mudumaamuugii u taaxaataynay waa nagii gaari karaysanay nimci iyo muna u tagnay waa nagii halkaasay maranayaan af soomaali noocaasa ayay runtii ku hadlayaan markaan weydiiye kuwa warafkaas waa nooc waa softi af soomaali markaa gadismo halkaa godob hadalkii loo geystay laysu gaagaabsho unbaa ii geysay kale fasilideeda godob hadalkii loo geystayoo laysu gaagaabsho kelmadahaad giraan moodabay gooniyeysteena waagii guduutaba iyaga wowgeed dhacaya allow yaa waxay garan layiin gaar u fahansiiya gaaladan galaalaha xunlee geesahana fiiqday gebangoobii inaan wada marnay guri ii seesteenee gacalkeenna maahoo gashay inaga dooxaana innaguna inaan garab galnaa waa gunnimo weynee dhaqankooda inaan door bidnaa waa garawxuma ee ka gabada waxaan guula rabin guri xun weeyaane gulufkii colaadaa haddii gaada gobol gaadho geesigii damiirlii rugta waa ka diriraaye gumuc iyo rasaas buu judhaba kula gariiraaye anna garashadaydaan hadloo gaabis maa noqona ka gabada waxaan guula rabin guri xun weeyaane guntin bay murtidu leedahay waxaan ku soo shabakada Batalaale News halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan kuwa afka Soomaaliya ku hadla dhammaan wada salaamayaa waxaan kaloo ka salaamayaa asxaabteeda gaarka ah dhammaan intii ka tirlagii waa salaamayaa waxaan si gaar ah u salaamayaa asxaabta halkan iga daawanaysa taasi waxaan ku soo gabagabaynaa barnaamijkani dhalinyarada oo maanta noogu marti ah abwan Salaaman Cabdi Cabdilaahi abwan Halaasi oo kamid ah dhalinyarada hal abuurka ku dhaqan magaalada Burco halka naga daawanaysana waa shabakada caalamiga ah Batalaale News xarunteeda ku leedahay magaalada Burco barnaamijka mid lamid ah intaan ku kulmi doono toddobaadka soo socda hadii Allah wada leedmo waxaan idinkaga tagaynaa fi amaanillah